warbaahinta Israa'iil oo soo xiganaysa warbixino dhinaca ammaanka ah ayaa sheegaysa in Israa'iil saaka oo Jimcaha ay weerartay bartilmaameedyo ku yaala gudaha dalka Iiraan. Telefishinka Iiraan ayaa sheegayay in jug weyn iyo dhawaqyo xooggan laga maqlay saaka gobolka Isfahaan ee bartamaha dalka Iiraan, waxayna warbaahinta dowladda Iiraan soo warinaysaa in saaka la hakiyay dhammaan duulimaadyadii diyaaradaha ee magaalooyin dhowr ah oo ku yaala dalka Iiraan. Wakaaladda wararka ee Fars News Agency ayaa ku waramaysa in saaka oo Jimcaha qaraxyo laga maqlay meel ku dhow garoonka diyaaradaha magaalada Isfahaan ee bartamaha dalka Iiraan iyo saldhigga ciidamada cirka ee la yiraahdo Hastam Sakari oo ay leeyihiin ciidamada Iiraan. Wakaaladdu waxay intaas ku dartay inaan weli si rasmi ah loo garanayn sababta ka dambaysa jugta weyn ee la maqlay oo loo malaynayo qaraxyo ka dhashay duqeymo Iiraan lala soo beegsaday, waxaana socda baaritaano lagu ogaanayo xogta dhabta ah ee dhacdadan. TV-ga ABC News oo soo xiganaya saraakiil Maraykan ah TV-ga ABC News oo soo xiganaya saraakiil Maraykan ah ayaa sheegaya in Israa'iil ay gantaal saaka ku garaacday goobo ka mid ah dhulka Iiraan. Dhanka kalena TV-ga CNN ayaa ka soo xigtay mareegta ka waranta duulimaadyada in safaradii diyaarado badan laga weeciyay hawada Iiraan saacadihii u dambeeyay subaxnimadan saaka ah. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sidoo kale ka soo xigtay sarkaal Maraykan ah oo sheegaya in gantaalada Israa'iil ay saaka garaaceen goobo ku yaala Iiraan. Wakaaladda ayaa sidoo kale soo xigatay saraakiil Iiraaniyiin ah in nidaamka difaaca hawada laga howlgeliyay gobolka Isfahaan kadib markii ay Israa'iil saaka weerartay gobolkaas. Sidoo kale sarkaal Maraykan oo goor dhaweyd isaguna la hadlayay TV-ga Al Jazeera ayaa u sheegay inay ka warhayaan wararka ku saabsan in Israa'iil ay saaka weerar ka fulisay gudaha dalka Iiraan. Shirkadda duulimaadyada diyaaradaha iyo duulista hawada Iiraan ayaa iyaduna goor dhaweyd ku dhawaaqday inay hakisay duulimaadyadii ay ku tegi jiray galbeedka, waqooyiga iyo koonfur galbeed ee waddanka Iiraan. Dhammaadkii toddobaadkii hore Iiraan ayaa boqolaal diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaallo ku weerartay Israa'iil iyadoo ka jawaabaysay weerar ay Israa'iil la beegsatay dhismaha safaaraddii Iiraan ee Suuriya. Sida ay sheegayaan warar hordhaca, Israa'iil ayaa iyaduna saaka ka jawaabtay weerarkii Iiraan ee toddobaadkii hore. Afhayeen goor dhaweyto u hadlay hay-adda hawada sare ee Iiraan ayaa warbaahinta u sheegay in nidaamka difaaca cirka ee Iiraan uu ku guulaystay inuu soo rido dhowr diyaaradood oo yaryar oo lagu soo weeraray Iiraan. Dhinaca kalena TV-ga CNN ayaa isna ka soo xigtay sarkaal Maraykan ah in Israa'iil aysan beegsan doonin xarumaha nukliyeerka ee Iiraan.